الله الرحمن الرحيم كلنتي waxaan u wanaagsan dhamaan baakhiyarteeda qiimaha iyo sharafta badan ee sida tooska hawada looga daawanayo ku soo dhawaada mid kamid ah barnaamijyadeena caafimaadka uga barateen inay idin ka baxaan TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland barnaamijkan oo ah xubin kamid ah barnaamijka caafimaadka ayaa waxaan ku wareysan doonaa Dr. Sheekh Maxamuud Maxamed Cali oo ah maamulaha guud ee rugta caafimaadka ee Al-Hidaaya كسر دو محمود برنامج كعافماتك اتفاق قناة سوماليلاند. وسلامتك بعد تلفزيون كقركة الحمد لله وسداد وشيرتي ربط عافماتك الهداية وحكاول بشهادة مقالة نيروبي رنتنيتو إلا بنكي وحنجوبنا مقالة هرقيسة نيو هرقيسة حساءاتي شغالي وين نجد جوكستي لكن هذا إن شاء الله انتو سنة كان ضمانين الرماس وحنكودنا سوماليلاند وحنوضو محمد آدم إن الديرو وعنكو قرب جوجت سوماليلاند كمدة أسان هذا هو شخص حل سارن مرة وأكون قرينا الهداية الحمد لله هذا ميلا بدنا يوسعدا سيد هذا يوروب وكله ويجينا نسوي سعدا وحوسعنا قدام يوروب وضد بدنا أي نلسوا حريرين أنا وتجينا كدبنا سوماليلاند وسوجدنا تين نيروبي الحمد لله وسيح وجني أنت سومالي في سومالي كل هذا الشيء وعن الشيء عذر والبؤي داوديس كلا وكونجوا وندا وزاكي إلى سوى حرقة عذر والبؤي داوديس حساء تدك وحلو قبها هاي إن أي فكرك وفوريان حق الله مركي حق الأوجي سدان تقاتير امتحانك مركي صور رأيت نوي مادين لكن مركور وحن كل تلا أمدي الصوماليات أفك الصومال وهذا الشيء إن أي كفكران إن مركور ورت مركي إسبيتال أما ملك الآدين إن أي لا مرك عندك كذا محمود هذا يا ما سنت هاي محمود waxaa jirta dadku dawooyinkan caadiga ah ee warshadaysan ama farmasiida ay ka qaataan iyo had iyo jeer way kala gedisan yihiin dawooyinka oo markaad u eegto dawooyinkaas waxay leeyihiin dhos iyo cabir oo iyo kiniino dadku laakiin kan markay iska qaataan qaadooyinka intay doonaan bay iska isticmaalaan dhibaato inta laga ayaad u malaynaysaa inay ka imaan karto birtan waa ku mahadsantahay su'aashaas adduunku waa horumaray marka adduunka loo fikirana macdantiya soo baxday caalamka wuxuu u fikiray sida adduunku horumarayay lahay daawada aan siinayno waa dhowr nooc haddii ay tahay liquid haday tahay way dose garaysan tahay oo expire date-keedii waxeedii waa leedahay dose-keedii leedahay waxtarkeedii oo inta waxyaabaha daawooyinka inta si dhamaan ka hor ee lagu qaban jira ayaa ku qoran daawooyin waxaa jira hadda 5,000 sano ka hor oo sida mushroomka oo kale isbaraliina daawooyin aan hadda aan siina 3,300 sano ka hor أنا مركز داوين كأسينا هذه تابلت هاني وحاسينا تابلت دوز جريسن هذه أي تهلك ودن وحاسينا وحياة دوز جريسن هذه بودر تانا سيدو كله قادوين الله استعماله مركز أنا قاب قاسين وحدياتنا حتى سريدها عن سينا إنه وحياة أكتس جريسن أفجران قيب نو بوشيد دوران قيب هاي كشقين دوران. واي مثلاً محمود دوين مثلاً عليش يدنا كلا وأما أوجد شيء كلاس تعملوا مريح أما بقى بينك لو سحته ولا سكدقه سيستمية الله استعمالها أما واحد كلا قد يسبب أو اسخلافيا دوين كعادي مسوا ما أنا هرت وحنا لا هذا تنلمرنا هذا سيدا بودر كعلنت أشياء يسون إنجليش أنا وحرق طابنا هذا كيجا وحيك الشقين يسا This antidote can be used all types of swelling, blood lumps, statement of joint to the colon and also several pain in the backside, chest, rib is also for bone pain. This antidote can be used fracture. intaas ba hal daawo shaqeys oo la mariyaa tii kale marka aan u fikirnay adduunka loo fikiray dhinaca oo bini aadanka haddii ay noqoto intaas oo taqtara hadda alxamdulillaah adduunka timiday hasaate ana waxaan usoo sheegay in kooban oo haddii bone mineral oo qaldan yahay dhuuxa wax ka baqayn waa ogaa karnaa ilbaxnimada adduunka oo gaaray romantism intuu qofka qabo waa ogaa karnaa transmitterka intuu tuuraayo waa la soco karnaa inta oo alxamdulillaah keliyaha ay shaqaynayaan beerka hadduu faat borotiinka qaybta borotiinka haddii la ceebto energyga haddii la ceebto hadduu faat saaraya waa ogaa karnaa brain blood supply waa ogaa karnaa waxyaabo badan ilaahay noo saqray isla markaasna dadka aan ugu shaqaynay oo ilaa Yurub saaxiibkii Cabdiqani iyo aniga aan meelo badan aan geynay dad badan ay ilaahay gacanteena daa ugu jiraan oo meelahaas dhan aan u furfurnay maxamuud waxa ugu maqaalaa in shirkadiina la yiraahdo Al-Hidaaya ay wax ka qabato dhinacyadan xanuunka la yiraahdo faalika oo had iyo jeerna aad u badan dadka bal hadaba fikir guud ka sii dadweynaha daawanaya siyaabaha uu ku yimaado markii hore faaligu iyo siyaabaha ugu fudud ee dawada loo tacaal kara ma loo qaato
كان فكر ما دام بني آدم كأفورين عالم كأفورين فكر كودي فكر كبدل وحوك هنا دمرج بدل أو مرح أو قيمة marka dhinacaan oo xirmay oo u jeedaan mahana dhinaca kale ayaa problem ka socda haddii qofka uga dhaco qaabtan midibta automatically waxa xirmayo dhigtaan korkeeda ayaa dhig ku xirmaa marka dhigaas uu xirmana waxa imaan karto inuu qofka ma hadlinbo oo hadalka joojiyo fikirka badnaay cusbada badan hilibka badan oo Soomaaliya aad u jeceshahay ma sha Allah wali waana xataa tuulaba markaa tagi Soomaaliland aan la kulmay in inta aan noloshada aan jira aan wili aan cunin oo la ii keenay hilib inta jeedo iyo kurs dawladda taagan alxamdulillah aan jecelna hilibkii asaacay barbaramku ka mid yahay waxa ka mid ah joodariyaashan oo hadda aan ku seexanayno oo ah chemical acidity isbuuyada waxay leedahay oxygen ka diraysa waxa la rabaa in oxygen fiican jirka helo oo oxygen kaaga oo maskaxda shaqada asriga waxa ku furaa imtixaan amba allergy badan iyo kala qalooc oo ku yimaada circulation ka bini'aadamka ayaa sababi karta dhinaca oo waxyaabahaas qofka oo sidii horeba stress badan iska jiray oo meelo badan diisaan loo taabto iska kacayn oo Soomaalideena intaas badan iyo amba xabadii oo wada gaareen meesha haduu ka taabto dhinaca kala fadhiisanay intuu maray laakiin dhinaca kala xirmay waxyaabahaas badan waa sababayaan marka ka hortagiisi qaab badan loo horta inaad horta digriga la badiyo ilaahay loo noqdo oo ilaahay qulubta la dejiyo ana qulubteena markaan salaada ban nimaadno markaas adduunyo dhan noo soo furmaysa adduunyadaas marka horta hal raa in la qaboojiyo oo qalbiga la qaboojiyo waxa aadna kuma dari kartid waxna ma nusqaam kartid wax walba waxa waaye wax ilaahay ku qoray laakiin haddii aan anaga adduunka u fikirno ilaahay waa naga kala firdhiha xagga ka doonay noqaysa laakiin waxayna inay iskoobaan haddii loo baa in digriga aan badino marka qulubta ay degto jirkan wuxuu u baahan yahay 8 saac oo nasiina ah 8 hours at least inuu nasto oo ku nasto waxyaabaha raashinka caloosh waxay u baahan tahay 3 qayb inaan u dhigno qayb raashinka ah qayb hawada ah qayb biyaha ah waxyaabo badan inaan yareyno oo Soomaalida oo hadda basatay hurdada maalintii badan cudur ay keenaysaa hurdada habeenkii oo yareeyahay dad badan oo dhalinyarada ah oo xataa aan pressure qabin oo hurdada kala bedeleen waa u timid dhibaatadaas sababta marka in idna laga taxadiro si aan dhibaatooyin badan u imaanin alxamdulillah caloosh overload habeenkii in la buuxiyo waa qalad oo overload aan ka dhigno alxamdulillah waxyaabo badan in habeenkii inta soo kacno xasil sida dilaayo habeenkii inta soo kacno aan waxaan qaabsaynaa jeeg biyo iska qabsaynaa gararab haddana automatic kaadiya soo kacnay marka kaadina biyo gararab horna waa ka seexaysaa baabuurku waa badamisay seeliska waa dhintay Soomaalida waxay garan karaan looda markii subaxdii la siiyaa biyaha haddii galabtii caloo ay cod soo coddo biyo loogu daro automatically waxa imaanaya inay dhaqaaq karin qofka bini aadamka haddii uu seexanayo oo biyo hore ka cabo seeda sidii u dilaa waxaa la rabaa subaxdii soo kac inta socoto dhan 10 litir biyo cab laakiin ma ahan in habeenka markaad jeebka soo kacdo oo musqushinka soo kaasay keen inaad tiraahdo 3 litir qab kasta xataa 1 litir ama xataa half litir waxaa loo baahan haddii in case aad laga maarmaan noqoto inaad dhuunta qoyso waxyaabahaas waxay ka mid yihiin waxyaabaha oo lagu difaaco oo dhinacaas faalid marka waxaan kaloo uga sii hortagnaa alhidaaya qalabna waa u helnay daawooyin oo alxamdulillah oo sida aan kuu sheegay prime blood supply-ga oo dhiigga wax supply gareeyo oo meelaha xirmeed leh ugu furo tii aan kow ka bilaabay oo borderka aheeday oo dhiigga fadhiistay waxaas oo dhan ku furfurmaayo saliido daawooyin oo body balance ah oo xataa waxaa ku jiro energized oo oxygen oo gudaha oo dhan oo jirka dhan oo helayo waxyaabo badan oo diyaarinay oo dad badan xataa alxamdulillah toobidana aad u fiican tahay dhinacaas oo qofka dawlad sokor qabin oo pressure uu ku dhaco qofka sokorta qabo waxaa loo baahan yahay in aan la jeexin musakiil aan loo deeyo ninka waxaa loo baahan inuu xataa cirbad qaato cirbadan oo inta tan insulinka camal isula diro kale inuu looga toobo meel qaarkood ay jiraan oo soo bandhigi doontaan insha Allah waayo maxamuud baliyadana waxaa faahfaahin guud dadweynaha aad ka siisaa haddii jeer badanaa imika dadka waxaad ku soo kacaya xanuunkan sonkortaa la yidhaahdo sonkortu waxaa jirta berigii hore dadka waaweyn ayay ku dhici jirtay imika waxaad arkaysaa ilmo yar oo 7 jira oo lagu leeyahay sonkor baa haysa bal sonkortan haddaba iyo siyaabaha ay u imaanayso iyo waxyaabaha intaana qofkii ku dhicin lagaga hortagi karana bal faahfaahin dadweynaha ayna daawanaya si ay uga faa'iidaystaan horta koow waxaa waaye barnaamijka waxaa keeno qaybka aad sheegaysa ilmaha yar ku dhacaysa dhaxaltooya ma karto haddii si dhaxaltooyo jirin
waxaa looga hortagaa oo kooga horo bankariskaagan ayaa la rabaa inaad ku dadaasho horta waa kii kala miisaamaya intaysan imaanin waa taadaad ku dhahay caloosha waa in horta aan imtixaan badan la gelin oo loo miisaamaa raashinka taga qaadaysa hawadii waxeedi kale exercisena waa la rabaa oo exerciseskana waxaa waaye iska orod kaliya maahane 5 salaadood iyo sunnooyinkeeda haddaad raacsiiso waaba exercise kaamil ah taasna waa looga hortago idaab ugu fiicanbo qaybihii kale oo alxamdulilah annaga hadda qaab ahaan waxaan u diyaaranay 4 step of the waxaan u diyaaranay oo diabetica qayb oo balancega keenayso oo body balance ah qayb sokorta ilaalinayso qayb oo siinaysa bankarska toos oo alxamdulilah subaxdii loo cunayo oo bankarska shaqeys iyo mashiin yar oo exercise oo qofku samaynayo 10 daqiiqo 10 daqiiqo habeenkii 10 daqiiqo subaxdii ah intaas baa u diyaarinay waana u soo bandhigi doontaan caalamka dhan inay ka faa'iidaystaan ayaan ugu talagalnay bishaan hadduu leeyahay shirarka ka dhacaya Yurub oo arrimaha caafimaadka looga hormariyo waa u soo gudbi doonaa inaan meel walba oo inta af Soomaaliya ku haysan waa gaarsiin doonaa hadduu leeyahay dhinacyada iyada gaaska ka waran gaaska Cabdullaahi waa la socotaa problemka wuxuu ka yimiday digestion la wareeriyay digestion waxa aad ugu sahlan oo lagu toosiyaa biyaha cad kaliya subaxdii 3 galaas marka salaad subax soo kacay biyo warm ah 3 galaas daad hagaajisto digestion ku hagaaga laakiin waa in adiga marka hore aan ka taxadirnaa digestionka waxyaabaha dhibku u keenay ama saliidda badneed oo dhibaysay waxyaabahaas oo inaan ka tartiibin ayaa loo baahanyaa overloadkii habeenkii cashada loola seexdo xataa markii oo saas ay timaado oo jiifka waxaa looga baahan qofka oo seexanayo oo gaaskaas problemkaas aad u qabo dhinacan waa dhiba inuu xoogay isu soo qaado oo jiifkiisa u badsisaan si ay wax u sii wada degaan ayaa aad u fiican oo digestionka looga shaqaysiyaa waana inuu maalin walba 2 mar ama 3 mar musqul hela biyaha kullu waxay sababayaan in digestionka hagaago biyahaas badan waxay ku sheegaan inaad hesho alool fiican oo musqusha aad aado waxyaabo badanna way jiraan oo alxamdulilah sida furuudyo badan oo loo cuno annagana waxaan sii helnay hal daawo oo u fiican 10 shay gas acidity constipation sleepiness headaches increase appetite active babasir joint pain iyo back pain u fiican hal daawo marka daawadaas intaas ay ka shaqeeyay laakiin waa maalin walba waa in la helaa caloosh waa in la dhaqaajiyaa si gaaskaas loogu badbaado in case haddii uu noqdo nabro ay noqoto xataa way jiraan waxyaabo badan oo alxamdulilah oo looga hortago oo insha Allah duleera aad soo bandhigi doontaan oo wadanka qaasatan Puntland iyo Somaliland aad ugu bari yahay waxa ugu fiican oo nabraas alxamo runtii fooxa la soo qaataa 5 liter biyaha lagu daraa habeenkii aad dhaga subaxda galaas habeenkii galaas asu hal ceeb uu leeyahay ceebta uu leeyahay waxa waaye caloosha ay joojinayaan laakiin nabarka uu raysanaya bar wadnihii inta uu ku jirtaan dhan waa u fiicay asaati caloosha waa ina furuud cuntaa marka si ay nabarka u sii baxo marka oo caloosha u socdo sibir laakiin aswa antibiotic oo nabraas gudaha caloosha ka dhaxsho dhan umada waana u buuxda Soomaalida hore aad bay u taqeen carabta dhan guri kasta carabta oo tagtar way taala waayahay aad ayaad mahadsan tahay Dr. Maxamuud waxaad jirta shirkadiina Al-Hidaaya daawooyin fara badan ayaa uga yimid caalamkana meel badan bay dawladda gaarsiisaa sida aad jecelahay dawooyinka idinku markaa ay isticmaashaan ma qaar dir ah baa mise waa qaar laydin soo warshadeeyey oo sharubooyina oo taablada oo kartoonkoodii iyo qaadoostood ku jira inta way jirtaa qaarka asheegayso oo wada diyaarsan waan helnaa qaar anaga diyaarin oo soo marta Kenya Bureau Standard soo martana way jirtaa hase ahaatee arrintaas oo dhan waxa anaga aad nooga sii caawa marka alaabtaas aan sii helno boostada Kenya oo 211 kii aan ku helnay alxamdulilah number fiican aan ka helnay caalamka dhan intaan Jarmalka iyo Botswana iyo Sacuudiga ka ahayn boostada Kenya iga caawiso inay gaarsiiso wixina waxay soo mareen laboratory dadkina waxaan ka qaadaa by telephone markii uu soo xiriiraan ayaan si deganaan ah inta u wareesto ayaan wax munaasab u diraa markii ku fiicnaan haddana runtii waxaa maqlayso UK maama Nuura oo degan UK jilbaheeda mid la qalay mid kala qaliin ku socday alxamdulilah daawona u darray waa ka bogsatay alxamdulilah maamooyin kale oo waxa degan Irish oo alxamdulilah dad badan oo haddana ku nool hadda magaalada Burco xalay isugiisa waan hilmaamnay oo runtii hadda la xiriirina daawooyin badan alxamdulilah meesha u dirna boostada umarsiina hase ahaatee daawooyinkeena way wada doosgaraysiin amba meelo badan nagu yimaadiino amba annaga aan diyaarino waayahay Maxamuud waxaad jirtay beridow tuulo aad wadanka Kenya ka tagtay oo aad gaadhay wadanka Somaliland 2012
bal ka waran Somaliland xanuunada qof kasta oo ugaas xirfadiisa ayuu markuu wadan tago soo indheeyaa heerka ay wadanka ka gaarsiisan tahay bal xanuunadaasi barksharka iyo faaliga iyo gaasta iyo xanuunadii magaasa khaaska waa inay daweyn jirtay Somaliland markii aad aaday intee laga ku cabir kartaa ma xaaladeeda siirad maxaad kula kulantay والله هرت الحمد لله سومالين بربلامك وبدا وحو هاي ستروغا يددك الحمد لله عن ستروغنا هي لكن قارك هوسودن اي سكن قارك اما حيرد النافس سيستم او ياهي او قرق او كنا نقد حيرد كان او الا ايو L4 L5 كسو بخو والحمد لله وحا انا waxaa jirtay waxaa ila joogay Muuse Giiro oo ahay wasiirada ugu horeeyay xanaanada xoolaha ee Somaliland waxaa kaloo nala joogay Dr. Shiina walaashiis oo 2 maalmood aan u shaqeyno oo garguurinaysa 2 maalmood ilaahay ka kiciyay iyo dad badan oo adiga waxa u badan Somaliland dadka aan xididadaas iyo dhiiga problem oo ka haysta dumarka wareegida dumarka ka haysta wareer oo dhinacan macdanta iyo uurku jirtaan oo dhan problem ka haysto marka dadkaas saas u badnaaday Somaliland marka dad badan alxamdulillah oo meesha aan kula kulno waqtiga oo yaray wax badan ka faa'iideen waxa igu dambeysay xataa Muuse Giiro oo aad wada garanaysaan oo wasiirka caafimaadka oo ugu horeeyay asoo u shiisaan u boodbooday oo la baxay oo stroke ahay marka alxamdulillah waa Somaliland niyad ugu fiican oo hayna magaalo walba aan ridaayeen insha Allah marka dawooyinka laga soo tago isticmaashaan ma jiraan dadyaabo kale oo yimaada oo ka cabanaya xanuuno kale oo ka caawisan oo ama xagga indhaha ah ama xagga dhagaha ah ama dareemada kale ee jirkeena واجرا جركو دن horta waa nalagu intaan kali 4 dhakhtar ka shaqeysto laakiin anaga lidaaya daan nahay fiiqitaanka maana aba wax operation maana inta kale waa qabanaa hadii indhaha noqon lahayd runtii waxa u fiican loobaanta hada idin sheegay hal 4 shay u fiican taa loobaanta xididka indhaha oo infection haysto way ka fujinaysaa ilowshaha badan oo bini'aadamka dhan u fiicnaaday way u fiican tahay indhii xageed guda ku jirkii oo dhan waxay u tahay daawo marka alxamdulillah waan easy oo guriga marka fooxii sideeba fooxii loo isticmaalaya 5 liter ayaa waxay ku shubayaan rubac wees kala dhigayaan biyihii waxay noqonayaan sidii waxyaabo oo sida caaran aan gaarin oo kale noqonayaan casuuskaas marka galaasta subaxdii asoo calooshiisa eber ah oo subaxda ku shubaa habeenkii markuu seexanaa bakeeri laakiin waa inuu furud cuno laakiin intaas waa wada roontahay hatta cudurro kale waaweyn aan nabra aan infection aan la bixi waay إذا كنت بحنا الحمد لله. مركب فروت كلنا يا ممن عيوم با مسوا خضرات أورد. خضرات وبرك هذه يبغى بايقنا يخرج هاي أبل كديله هيك رأى وفي عينه لبلاش. أبل كان حل أبل حوي هاي دكتور أمم بهند وان أبل دكتور أوي علينا. أو تبع ابنك لازم تو أكسجين كهجا هاي جرك دن سير دن مركا الحمد لله تاسم واجرتا حتى لو حنوصل الناس مالين مشروع حاولنا لبعتن سنة كون أودي على هذا قاب يكسر نقرس معها لبعتن سنة عمر قاعد يجرى لكن أودي على هذا أي صار لابنيس الدولة أو لبعتن كسنة شهادة وحكاية ستا هي أدعافات WHO وحالو عيني يا ماشاس لبعتن يسديد كون أو سنتيستي أنا ليه هاي سنتيستان هذا برانتي نكير وحنا لكيره قف بقول سنة جرب مقال كيس الحساس الكسور نقدي أودي سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما وانا تصدقنا وانا صبر نقدر 28,000 أو سنت يستعمل ليه ناتين هذا برهان يسين كيرا فرنتنا قال كان وحكر هذه حكمة أقولت أدويد لو كنا لكن ما كان وحكر هذا الكتاب من الدعوات كده حلال وأن من ماليزيان أو إلى حكمة سيء أدوك أن نوقف هذا غفك هي أودي سواء نقول سيلا تجرك لما تنجر كون أودي على هذا هذا أفرت إلى سيان هذا لما تشجر له كين هو أودي على هذا ما أنا أفرت شد لما تنسوي علي ما أنا كاتوري أودي على هذا عبد الله حال أي صلى الله عليه وسلم لح براد إسعاء وحالنا human growth hormone أبقى نجر هو بني آدم كمسكح هذا أكتر هديه هجاجا نجر كلنا هجاجا سيل سيدي صورنا قراءة موقال كان صورنا قراءة وضنيه أودي بارتفاعات كيا كبحاي وتسافر لأنه وحول الهداية ما waxay ka furan tahay Kenya iyo meelo kale oo wadanka Soomaaliya kamid ah mise Soomaaliland xageeda loo ka furan tahay ما حد دولة مرة وانا حاولنا ولا محمد آدم إن ديره أو كم دير أو قابل سنة حتى قرب جوكتا Soomaaliland dadka ugu firfircoon ku jiro yarkaas hadda qaabilsan oo noo wado inuu mashruuc weyn aan ka fulino Soomaaliland oo maalin walba ilaa 500 qofood 600 qofood aan u diyaarino caafimaad oo qarashkana uusan dhibi doonin insha Allah oo ku farxi doonaan daaweyn Thailand aan ku yiri doono iyo qalab tayo leh
aan soo diyaarnay ilaahay idinkiis waxaa dhici doonta feel good now dareen fiican oo dhaba aan dareemaya uu leeyahay qofka markuu naga tegi doono dowladaha waayahay gabagabadii barnaamijkeena maxamuud dadka ina daawanaya maxaad caafimaadka sideedaba fikrad guud aad ka siinaysaa ood kula talinaysaa oo dardaaran ahaan aad maxamuud uga tegaysaa maadaama aad maanta fursad u heshay tv-ga qaranka horta kheyr allah idin siiyo dadka waxaan uga tegaynaa horta inay sunnadii gacan fiican ku qabsadaan dadki waxaa wareeriyay waxa la yidhaha buufis iyo faataadho kale oo alla uga dhaqaaqi iyo waayaan tahriib iyo tahriibka kusoo dar iyo yaqiintii oo xumaatay markuu mashiinkaa xumaado wax walba waa xumaanaya khaasatan dadkeena hadda waxay kusoo qorafaadyo iyo beenbeen alxamdulilah waxyaaba aana jirin oo alla uga fogaanayna way ka doonaan caafimaadka marka waxaan leeyahay in ay ka taxadiraan daawooyinka ay qaadanayaan iyo meelaha ay ka qaadanayaan in ay horta waxaan alla ma ogol yahay inay qaadaan hadduuna alla ogolaynin in ay 10 marka sii fogaadaan laakiin hadda dadkeena 90% waxaad dareemaysaa in ay sii taraaraxayaan hadday xagga qalbiga tahay oo ay meelo badan ay ku imtixaanmayaan marka waxaan leeyahay in ay ku alla tala saartaan ilaahay markay xusaan waxaa u fududaanaya jidadka khayraadka nimankaan hadda sokorta qaban waxaan leeyahay exercise-kaan lidinku wareeriyey iyo waraarkaan oo hadda ka bixi karina war salaada iyo sunnadeeda badiya markay bataan exercise fiican haystaan ilaahayna waa qaadaya marka insha Allah dadka sokortan waxaan usii sheegayaa weliba inay 3 bakeeri oo biyo kulul ay warm ah ay subax walba cabaan biyo warm ah oo kulul ah waxaa dhacayso inuu jirkoodii lafoodii dhiigga dhab u soo furo laakiin haddii sii wada qabaan Yurub ay meel walba way wada xiran dadka hadda Yurub u socono meel walba way xiran gabdha aan kula kulmay Yurub daktarka daawadiisa waxay dheer xanuun kala ka sii qaadana marka iyagana waxaan dhihi inay horta ku ilaahay aaminaan biyahaasna xataa ay aad isku daawayaan ay u sheegalayaan ummadda aad ayaad umahadsan tahay doctor maxamuud sida wanaagsan aad waqtigaan noo siisay sidoo kale idinkana bahda telefishinka qaranka Soomaaliland waa salaamadkeena daawadayaasheeda qiimaha iyo sharafta loo waxaa inoogu dhammaaday intaasi intii ka mid ahayd barnaamijkeena caafimaadka oo kala socoteen stuudioga tv-ga qaranku ku leeyahay xarunta magaalada Nairobi ee waddanka Kenya anigoo Cabdilaahi Cabdi Cali la socodsiinayay sidaa iyo isarag maqal dambe oo xiiso leh